أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. waxaan caawa halkaan isugu nimid inaan soo dhaweyno guddoomiyayaasha cusub ee loo magacaabay degmada Shingaani iyo degmada Xamarweyne. waxaa farxad weyn noo ah iyadoo Ramadaan tahay waanu ka xunnahay inaan waqtigan saan oo cariiriga ah inaan ku soo duubno ay ka fiicnaan lahayd iyadoo banaadir oo dhan dalkan UK jooga farxadooda lama soo koobi karo inaan meel weyn isugu imaano oo aan si fiican aan ka weyn inaan ku soo duubnaan jeclaan lahayn laakiinse waxaan walaalaheena uga cudur daaranaynaa inay naga saamaxaan. runtii waxaa farxad weyn noo ah gabadhayna walaashayna oo loo doortay degmada Shingaani Basma Cumar Axmed aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaan nahay guddoomiyaha baraarujinta bahweynta banaadir ee UK. magacayga Xasan Muriidi ayaa la yiraahdaa. waa ku soo dhaweynaynaa walaasheeda waxaan ku leenahay guul dadkaaga walaalahaaga Soomaaliyeed iyo dalkaagaba waxaa la rabaa inaad ka soo muuqato wax la taaban karana taariikhda bari ku xusaysana inaad la soo baxdo annagana aan maanta berito aan kaaga hadalno u sheegno ummadda kale ee waqtigaaga dambe imaan doonana ayagana ay tusaale ugu noqoto. waanu ku faraxsannahay guddoomiyihii hore ee Shingaani marka dambe laga bedelay oo Xamarweyne loo bedelay oo la dhihi jiray Saciid Maxamed Cabduqaadir Saciid. aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sida walaaltinimada geesinimada kalkaceelka oo walaashiisa ugu wareejiyay xilkaasi. taasina waa soo dhaweynaa aad iyo aadaan u soo dhaweynayaa. tan kale raalla ahaada hilmaami hadal kuma jiro. Saciid marka dambe waxaa loo bedelay degmada Xamarweyne. aad iyo aadaan ugu faraxsannahay asagana sida wacan wanaagsan oo walaasheeda ugu wareejiyay degmada Shingaani oo maanta xilkii ayagoo isku caloolfiyow oo ay ku faraxsan yihiin. adduunka nin kastaba xil waa laga qaadaa xilna waa la soo dhiibaa. taasina waa ku faraxsannahay isbeddelkan weyn ee sanadkan uu ra'iisul wasaaraha magacaabay. aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa. tan kalena waxaan soo dhaweynaynaa degmada Xamarweyne oo la magacaabay Cumar Shariif Maye oo annaga aan u naqaano Cumar Shariif Jeeg. aad iyo aadaan asagana ugu faraxsannahay soo dadaalkiisa sida annaga kolay waa ismaqalnay telefoon isku maqalnay wuxuu inoo sheegay inuu magaaladii iyo inuu wax ka qaban doono ummadda Soomaaliyeed la shaqeyn doono. aadan u soo dhaweynaynaa shaqadiisa iyo howlkarnimadiisa marka horena waa ku ogeyn insha Allah waan ka sugaynaa inuu asagana noqdo raggii oo u soo baxay banaadir ee maanta wax weyn ka qabtay ummadda Soomaaliyeedna uu horseeday wanaaga ee gobolka u baahan yahay degmo u baahan tahay. waa maasantihiin. waxaana kale halkaan ka salaamaya ummadda reer banaadir meel kasta ay joogaan sida aad hadda wada arkaysaan ummadda reer banaadir halkaan idin wada imaaday caawa way idinku faraxsan yihiin soo dhaweyntiina caawa maanta iyadoo son ah ay halkaan dhammaantood isugu imaadeen wayna idin soo dhaweynayaan farxad awgeeda ay leeyihiin soo dhawaada guddoomiyaasha cusub waana ku mahadsantihiin waana idin mahad celinaynaa dadaalka weyn aad la imaan doontaan. waxaan idin leenahay wabilaahi tawfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. جزاك الله خير ولكن قدوميها بيبي بنادر مدن حسن مريدي خطبة الخيمة لان سيدا نوصو بالبسي وكم حسن تهي waxaan leeyahay Ramadaan Kariim meel kasta joogtaan waa sida mar telefisyoonada meel kasta iga aragteen waa anigoo ah Cusmaan Maxamuud Iimaan. maanta waxaan hambalyo u diraynaa ayadoo bil Ramadaan ay tahay guddoomiyaasha cusub ee 15 ee isbeddelka lagu sameeyay ee Muqdisho. dhammaantood waxaan u diraynaa hambalyo ayaan leenahay. waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala inuu Ilaahay idin garab galo ilaa mas'uuliyad aan saaray ma ahan yani qofka markii loo magacaabo meel inuu meeshaas xafiiska iska fariisto oo sida gurigiisa oo kale u joogo ma ahan. waxaa loo baahan yahay waa sidii Cumar bin Khattab inuu noqdo har iyo haween inuu mas'uul noqdo inuu wareego cidda dhibaataysan cidda wax ka maqan cidda wax tabanayso inuu ogaado. mas'uuliyadda waa taas marka qofka la leeyahay. marka anagana waxaan leenahay Ilaahay idin garab galo waajibkiina guta. marka qof kastoo la doortana waxaa loo baahan yahay shacabka inay la shaqeeyaan. ilaan qofka markii meel mas'uuliyad loo dhiibo
ma ahan inuu keligiis yacni wax qaban karo masal ahaan walaalkeena hadda cumar shariif jeeg yacni degmada xamarweyn loo magacaabay ma ahan in keligiis lagu day waxaa loo baahan yahay ammaanka dhinac kasto baahida wax kasto inay shacabka la shaqeeyaan haddii ay wax la qabanin qof keligiis wax ma naqan karo arrintaa mar hore ayaan ka soo hadlay xataa madaxweynaha arrintiisa waa ka soo hadlay aniga kuma ku soo koobaaya dadkan oo keliya degmooyinka loo dhiibay xataa madaxweynaha farmaajo waxaa loo baahan yahay shacabka inay la shaqeeyaan laakiin xaq waxay u leeyihiin inay la xisaabtamaan asiga ma ahan yacni qofka mas-uuliyad loo dhiibo inuu wuxuu raba iska samaysan karo laakiin waa in wakti la siiyaa oo loola xisaabtami karo fursad la siiyaa taasna waa imaanaysaa insha allah yaa la degdegin waxaa loo baahan yahay horta inaan wax ka qabano abaarta maanta soomaaliya ka taagan abaarta markii arrinteeda aan xalino markaas ayaan la fariisan karnaa madaxweynaha iyo prime ministerka cid kastoo mas-uuliyad qaada ama wasiir ah laakiin intii abaartan ay socoto haddii oo maanta aan iska qabsano saacad kastoo dad ayaa u dhimanaya inta aan murmayno marka waxaan u sheegayaa soomaalida meel kastoo joogaan fursad ha la siiya madaxweynaha kolba waa imaanaysa taariikh loola xisaabtami doono marka waxaan leeyahay kuwa arrintan baahida jirto aan xalino dad ayaa gaajo u dhimanooyo dad ayaa oon u dhimanooyo markii arrintan ay dhammaato xisaabtan waa imaan doona insha allahu tacaala marka waxaan idin leeyahay dhammaantiina meel kastoo joogtaan midooba hal gacan naqda lama joogo waqti tafaraaruq ilaan qofka waxa waaye dhergan kan baahan kama naxayo nin kasta familkiisu ku dhex jiraa yacni qaarkooda dibadda u joogaan familkooda laakiin muran iyo isla qabsi hadda looma baahna insha allahu tacaala waxaan leeyahay guddoomiyaasha cusubna ha loola shaqeeyo har iyo habeen waa inay ayagana iska dhaafaan ummadda dhan inay sinaan oo u simaanaadaan soomaalida oo dhan yacni sida nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay annaasu ka asnaani mushta dadka waxay u siman yihiin shida shalladoo kale ma ahan haddii jago lagu dhiibo inaad qabiilkaaga aad eexsato ama qabiilkaaga aad soo dhawaysato ma ahan qof kastoo aad aragtid inuu waddankaas wax ka qaban karo waa in jagada uu u qalmo loo dhiiba xataa asiga hadduu dalbanin laakiin ummadda hadday u arkaan qof wanaag ah ha loo dhiibo ilaa mas-uuliyadda ma saharsana laakiin ummadda halgaca ha naqato insha allahu tacaala waana mahadsantihiin wabillahi towfiiq بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخوكم قاسم علي شيخ بكر maanta waxaa jeclaa insha allahu tacaala in aan ka hadlo mawduuc ku saabsan ummad oo intaasoo sano dhibaato soo martay oo u baahan maanta insha allahu taala maadaama dowlad cusub iyo gudoomiyaal la wada doortay oo degmooyinka marka maanta waxaa jeclaa insha allahu tacaala yani haddii aan taariikhda fiirino nebiyaalka calayhim asalaatu wasalaam ajmaciin nebi loo soo diray ma arkaysid oo la dhahay dadka farsamo yaqaan bar ama sida loo sameeyo technologiga ma arkaysid nebi la dhahay intaan soo bar laakiin nebi kastoo lasoo diray waxaa loo soo diray in uu dadka baro taqwa allahi iyo si ay janno ku shaqaystaan ummadda sahal waaye si ay ku helaan adduunka sida loogu shaqaysto dadka badankoodana adduunkay ku mashquulsan yihiin ilaahana ka magan galna subxana wa tacaala inuu noqdo hamigeena allahuma rabbi laa tajcal addunya akbara hamina hamigeena dhan ilaah waa ka dhigin adduun hamigeena aakhira allah ka dhigo si adduunka dhan noo soo khidmeeyo waxaan rabaa inaan marka mawduuc taabto الله سبحانه وتعالى القرآن وحكوا لها آيات عجيبة سورة الحج آيات أفرتني كواد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة عجيبة أيضا ذاتك مركي قعنت اللوغلي دولك أما ودنك قعنت اللوغلي الذين إن مكناهم في الأرض آيات أفرتني كواد سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور dadkii markii gacanta ilaahay gacanta u geliyay dhulka ama magaalada ama wadanka meeshii gacantooda u geliyay aqaamu salaa salaadana oo toosiyey salaad dugtay ma salaada toosiyey salaad sax dugtay salaad si sax loo dugtay oo la baray wa aataw zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar dadkana wax fiican amro xumaantana ka reebo iyadoon wax la qasbin ummadda la jeclaysiin karaa salaada qiimahay leedahay iyo macaankeeda iyo allah ku xirnaashihiisa laana ummad haddii ay ka dhumaan ama ay waayaan salaada sida loo toosiyo ama diinta si loo toosiyo jannay gafayaan waxaa laga yaabaa inay adduunka milyaaneer noqdaan oo nabad helaan laakiin aakhira markii la tago ay noqdaan dad aan waxba haysanin ilaah ha naga koriyo marka salaada si sax aan u toosino diinta aan ku dhegno guryaha يعني معنى والدين تي ولا لها دولة عصب وحنا كدل بنينا
dugsiyada qur-aanka oo dudumay weliba goboladan oo dagaalka si xun oo u baaba'ay in loo soo nooleeyo dugsiyada qur-aankii dadka magaalooyinkaas ama xaafadahaas degan in ay qur-aanka cilmiga diinta la baro khaasatan ilmahaas oo dayacan oo dariiqa fa fadhiyo qiso cajiib badanaan rabaa inaan inkuu khatimo oo ah in 2 minutes in sha allahu tacaala qisada marka waxay tahay laba nin masaakiina meel fadhiya way ilaahay baryaya midna waxau dhahay yaa allah ilaahay oo dhahay yani fadligaagaan ku weydiisanaa nin kalena waxau dhahay naagta oo boqorka naagtiisa waxau dhahay ilaahow boqoradda fadligeedaan weydiisanaa marka waxaa dhacday in kii oo marka naagtii boqoradda uu qabay way maqlaysa qisada markay usoo dirtay ninkaan oo dhahay ilaahay fadligiisa weydina 2 dirham ay usoo diri jirtay oo fidda ah yani 2 dirham bes ninkaani dooro dhan ay usoo diri jirtay yani hal digaag oo diyaarsan oo karsan oo ay usoo diri jirtay marka ninkan oo ilaahay fadligiisa weydiistay wuxuu ka gadan jiray ama 2 dirham wuxuu sii jiray ninka maskiinka ah oo digaaga la soo siiyay ma fahantay oo ka gadan jiray digaagiisa cuni jiray maalintii dambe 10 maalin ka bacdi naagtii boqoradda u imaaday waxay dhahday hayay dhahday fadligeena ma ku soo gaaray macnaa wixii aad anaga naga barsan ninkii laana ninna wuxuu bariyay boqoradda waxay haysay isii dhahay ninna wuxuu dhahay allah wuxuu haysay ninkii boqoradda waxay hayso oo isii uu dhahay ay weydiisay hayay ma ku soo gaaray fadligan ha digaaga ay soo diri jirto dhahay ama yani aan hilib digaag oo diyaar ah marka ninkaana ka gadan jiray oo dhahay markaas madaxa intee ruuxda waxay dhahay digaaga dhexdiisa 10 dirhaman maalin kasta kuu soo gelin jiray laakiin adiga boqoradda wax ka baraysay ilaahay wuu ku gafiyey ninkaasna wuxuu ilaahay fadligiisa weydiistay 10 dirham asaga yani oo dirhamka oo dahabiga ahay asaga ka qaadan jiray 2 dirham oo wuxuu ku siin jiray silver because adiga waxa baraysay boqoradda inay wax ku siiso asagana wuxuu bariyay allah marka allah aan ku xirnaano وبالله التوفيق وتوكلنا على الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نصيب وعيالنا رمضانكم كجرنا يقدوم ياكيو رسو بدلي الحمد لله ما شاء الله ما تعلنينا قدوميها حكم وصوذي ما دام وحيدا أو تايم لهن إيكو كلس بقصو صاري رمضان إنه كرتمت iyo xafladiyo isku timid alxamdulillah waxaan wada dhahaa ramadaan alkariim wareenti waxaan isku salaama madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka kadib waxaan sii dhaadhacaa gudoomiyooyinka oo degmada xamarweyne iyo shingaani waxaan dhahaa mabruuk walaashaan basma cumar axmed iyo cumar shariif maye waxaan dhahaa insha allah ilaahani garab galo arinta masaahasano marka alxamdulillah wixii maanta ka gaarsiinanayna waxaan jeclaan lahayn waxaan wax ka sii weyn marka alxamdulillah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.